iyadoo tan iyo markii doorashooyinka cadaadada ay ka bilowdeen soo badanayeen cabashooyinka beelaha qaar ay ka qabaan maamulka ergooyinka doorashada iyo wax isdabamarino kale ayaa maanta mid ka mid ah beelaha Galmudug oo cadaadada kulan ku yeeshay waxa ay sheegeen in faragelin xoogan lagu hayo kursiga xubin baarlamaan ee aqalka hoose ay ku leeyihiin iyagoo sheegay in ergadii odayaasha dhaqanka guddiga doorashooyinka ay u gudbiyeen si sax ah loo maamulin isla markaana madaxda Galmudug iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo gobol ee Galmudug ay musharaxiinta qaar wataan balse iyagu ay doonayaan in murashaxiinta kursigan u sharaxan si cadaalad ah u tartamaan odayaal dhaqameedkii waxgaradkii kale ka hadlay kulanka ayaa madaxda Galmudug ugu baaqay inay cadaaladda ka shaqeeyaan si bulshada hogaankooda ay ugu kalsoonaadaan intaas lugooye ka badan ma dul qaadan karno mana aqbalayno mana aqbali doono wixii ka yimaada oo dhibaato oo ay dhashay arintaas waxa madaxa saaranaya maamulka Galmudug Cabdikariin madaxda u yahay iyo guddiga doorashada ma dhihi karna hadda guddi doorasho ma dhihi karna dadka shaqaalaha oo dadka u shaqeynaya oo u diiday dadka maarta xurmadooda u diiday iyo codkoodii u diiday dadkaas ay qusayn doontaa wixii ka yimaada waxaan leenahay hal la joojiyo xadgudubka saas baanu leenahay ku talinaynaa waxaan ahay guddoomiyihii nabadoonkii reexirsi oo koonfure guddoomiyihii haysoona waa waxaan cilaaminay annagoo haysoo ah oo dhan in ergadaas lagu tartamo oo konton iyo kowdaas saddexda beelood inay ku tartamaan nimanka la yiraahdo Galmudug dawladda federaalka iyo guddiga ayaa qalday waxay rabaan inay ayagu wataan oo Xasan Sheekh oo odaynayo jeebkiisa ku jira inay wax siiyaan annaguna ma ogolin in aan si qalada iyo si qaloocan midna aan wax u qaadano waxaan cadaynaynaa oo xaqiijinaynaa inaan doorasho madax bannaan Galmudug la keenin in magacyo xamar laga soo qaaday la wato in dadka kale laguna dilayo laguna dandaraynayo annagu haddaan beesha faraxna waxaan sheegaynaa oo cadaynaynaa golaha hoose beesha farax hal nin bay ku leedahay ninkii laba nin bay lahaayeen ninkii kaleeto golaha sare ayuu ahaa si qaldan baa lagu maamulay waxaan leenahay war kursiga haray cadaaladda lagu soo celiyo anagu waxaan la yaabanahay wadla tacajubsanna وقال عقلي قال لي لا إيه أنت مدة إرجدي سيد حلاشة لو حري إلا سوق قد بنواي ونك هايستا وديجان كأول شيء نك هيا وكفر يستي نديجان كأول شيء ويه وضد كي سيد حد يسويه وأوتشوا قعدا ينو سوق قد بنواي وصل صارت ولا سوق ما قاعد أنت لو قصوا دي بحمر ليري كاسة كوسبه waxa jaa'iba weeye waxa la laqi karin weeye waxa la qaadan karana ma waxaan ku soo gaabinayaa oo doonayaa oo khiyaartoodan ay doonayaan waa anagu aan doonayna kursi liiskaas in la soo gudbiyo sida imaamku uu shala uga hadlay liiskaas la sal saaranayo in la soo gudbiyo yaan dhibaato la abuurin waxaan doonaynaa waa wanaag waxaan rabaa cadaaladda wada shaqeyn anagu haddaan beesha faraxanahay ما كانت شعلين ضد المشرحين توا ولا لهاي ورير فرع ما كانت شعلين لكن واحد ربنا سعد دارنا اللي قوم معملوا أيقنا الله يسكت دين أنا الله يسكت هاي الدين ماشي هذه بيتها كتير دبعتها سنة نسامي سنة مرهم ديجان كي نقضي نسامي سنة مرهم وحال كان كتير أفكار كدورينا وحياب لوا قف ولا هو مركي هذا واحد ربنا إن الجسء عليه dadkii kala hadda sidii rawaaba laga yeelay dadkii deegaanka aan diyaaradu keenin ee meeshii dhex jooga ma dhici karto in inta laga tilraabsado aadiyaal ku rooyahay si khalad loo maamulay ku raali noqdaan ma dhacayso Daayir Faarax Ahmed telefishinka Kalsan Cadaado